السلام عليكم وإذن سلام أصحابتك soo dhawaada muuqaalkeena halka igala socotaan waa Fahima Channel soo dhawaada ayaa idin leeyahay muuqaal aad u xanuun badan ayaa maanta idiin wada oo ay la soo wadaagtay gabar ay ku dhacda qiso oo lagu magacaabo Fartuun bal qisadan ay noo bilaabo gabadhan waxa ay tiri waxaan ku noolaa wadanka Kenya hooyadeedii aabahayga ayaan u shaqeyn jiray ayay tiri waxaan iibin jiray shaaxa markaasi waxa ii furnad ayay tiri maqaaxi yar oo markaasi nolol maalmeedkayga iyo wixii markaasi reerkeena aan u diriyay aan ka soo saari jiray ayay tiri waxay dhahday nolol aad u qurux badan ayay ii ahayd maadaama aan aniga reerkeyga iyo nolosheeda aan ku filnaa ma jirin culeys isaarnaa ayay tiri gabadhan waxay tiri maalin maalmaha kamid ayaan wiil isbaranay wiilkaas oo markaasi imaaday goobta aan shaaxa ku iibin jiray isla markaasna aan isku dhex baarna halkaas ayay tiri lambar ayaan kala qoranay muddo ayaana sheekeysanaynay wiilkaasina waxa uu ka imaaday wadanka South Africa ayay tiri wiil Soomaaliyeed aad u qurux badan oo akhlaaq leh oo diin iyo markaasi heybad ay ka muuqata ayuu ahaa ayay tiri markii aan muddo wada sheekeysanay wiilkii waa uu noqday markii uu noqdo kadibna xiriirkeena halkaas ayaan ka sii wadnay ayay tiri aniga markii hore aan wiilka arkay ayaan aad ula dhacay sidoo kale asagana waxay tiri igama liidanin wiilkii muddo ayaan wada soconay ayay tiri muddo ayaan wada soconay muddadii aan wada soconay waxay ahayd muddo ku dhawaad 2 sano ah muddadaas aan wada soconay wax ehelkiisa ima barin ayay tiri laakiin aniga waxaan baray walaashayda iyo gabar aan saaxiibo ahaynay markaas kadib markii aan ninkii muddo wada soconay waxaan go'aan ku gaarnay inaan isguursano ayay tiri oo uu igu imaado wadanka Kenya oo halkii aan aniga maqaaxida ku lahaa isla markaasna aan deganaa wiilkii sidoo kale waa uu ogolaaday markaasina guurkeenii ayaa waxay tiri diyaar gareyskiisii ayaa la bilooway marka waxay dhad anigu aad baa ugu faraxsanaa maadaama aan ahaa qof shaqo ku daalay nolosha maareynteedana ay aad runtii ugu adkeeday in aan guursado oo reer aan yeeshto runtii aad baa ugu faraxsanaa ayay tiri kadib waxaa dhacday ayay tiri meherkii ayaa dhacay ninkiina waa uu imaaday ninkii reerkeyga ayuu iga doontay ayay tiri aroos qurux badanna waa uu ii dhacay waxaan gaaray ayay tiri heer aan ka tago goobtii shaqada ninkii waxay dhahday aad buu ii qanciyay aadna waa uu ii kaafiyey wax walba oo aan uga baahanahay waan ka heli jiray ayay tiri xitaa aniga oo aan weydiisan ayuu isiin jiray sidoo kale reerkeygana aad buu ugu wanaagsanaa ma jirin ayay tiri xilligaas aan wada joogno wax aan dhihi kara ama wax cilada oo aan ninkaasi aan ka tabanayo laakiin waxyaabaha gadaal ay ka sheegi doonto Fartuun ayaa runtii wax aad loola qaracmay ee bal muuqaalka aynu wada dhameysano kadib waxay tiri Fartuun anaga oo noloshaas aad ku quruxda badan ku jirno ninkii waxa uu ila joogo muddo 6 bilood ah waxa uuna ku noqday wadanka South Africa anigana waxaan qaaday ayay tiri uur alxamdulillah anigoo jawi qurux badan ku jiro oo nolosheeda cirkaas ay mareysa ayay tiri oo shaqadeedii xitaa damacsan in aan ku soo noqdo ayaa xanuun igu soo booday ayay tiri xanuunkaas aan fahmi waayay meel la iga hayo laakiin waxaan moodayay in xanuunka uu yahay uurka maadaama cunuga igu horeeyay uu ahaa waxa islaha mindhaa uurka aad wadid waay xanuunkan ku haya laakiin dhakhtarna uma tagin dhaqsi ayay tiri sidoo kaleetana qof aan la tashta ama aan weydiiyay ama aan u sheegay xanuunka ihay meesan jirinin shaqadeedii ayaan ku noqday shaqadu waa igu adkeed laakiin gabar ayaa waxay tiri caawin jirtay oo markaasi shaqada ila waday laakiin maalmaha qaar aad baan runtii u xanuunsanaa oo imaanshaheeda aad baa u dhibsanaya ayay tiri uurkii ayaa soo weynaa 8 bilood camalna waa soo gaaray ayay tiri ninkiina aad baa isugu fiicneen waan wada hadlaynay wanaageena lagama sheekay karin ayay tiri sidoo kale waalidkeygana wax dhibaato ah ma jirin oo ninka berigii u idoontay ayuu aad u wanaajiyay marka waalidkay laftooda aad bay ugu faraxsanaayeen ninka aan guursaday muddo kadib waxay tiri waxaa soo batay xanuunkeygii aniga oo bishii 9aad ku jiro ayaan xanuun daran aan dareemo waxaanan aaday ayay tiri dhakhtarkii markii aan tagay baaritaano kala duwan ayaa waxay tiri la igu sameeyay waxaase la iga sheegay arrin aan runtii aad uga naxay ayay tiri arrintaasi oo ahayd in aan qabo ama la iga helay cudurka AIDS-ka ee dilaaga ah markaas kadib Fartuun waxay tiri waaba aamini waayay xoog ayaa u naxa ayay tiri waana aamini waayay kadibna waxaan go'aansaday inaan dhaqtarro fara badan tago si arrinkan la igu sheega aan xaqiiqsado kadib waxay dhahday 2 dhaqtar oo kale ayaan tagay isla sidii oo kale waxaana la ii sheegay inaan cudurkaas qabo
halka uu cudurkaas iiga yimid ma garan karin ayay tiri waqtigaasi. Aniga oo aad u naxsan ayaan wacay ayay tiri ninkaygii, waxaana u sheegay arrinta jirta iyo halka aniga aan markaasi xanuunkan uu iga imaaday inaan aad u fahmi la'ahay. Ninkiina waxa uu igu yiri walaaley adiga ayaa qabtay marka aniguna cudurkan ayaa igu riday. Maya ayaan ku dhahay ayay tiri anigu gabar ayaan ahaa markaa isguursaneynana adiga ayuu ahaa qofkii iigu horreeyay oo aan guursaday. Marka anigu kuma khayaanin. Ninkii habeenkii waxay dhahday waa isfahmi weynay. Waxa uuna dusha iga saaray in xanuunkan aniga aan qabay. Waan umulay ayay tiri aniga oo xanuunkii hayo dawooyin ayaa la igu bilaaway. Kadib habeenada ka mid markii aan umulay ayaa ninkaygii oo markaas ismaqli jirnay ismaqalnay waxa uuna igu yiri walaaley waxaan rabaa in aan kuu sheego arrin aan kaa qarinayay, arrintaas oo haddii aan kuu sheegana aan kaa rabo inaa i cafisid. Markii aan weydiiyey oo aan dhahay maxay tahayna waxa uu yiri anigu waxa aan horay u qabay cudurka AIDS-ka ama cudurka dilaaga ah. Markii aan wada sheekeysanayno oo dhan cudurkaasi waan qabay. Marka haddii aan kuu sheegi lahaa waxaan ka baqayay inaa guurkayga diido, sidaas darteed ayaan kaaga qariyay. Haddana maadaama wixii ay dhaceen waxaan kaa codsanayaa inaa i cafiso. Cudurkaasi waxay ila tahay 100% inaa aniga iga qaaday. Marka aad baa u qaracmay ayay tiri waan ooyo taleefankiina waan ku jaray. Ninkii kadib waxay dhahday markii arrinta sidaasi ay dhacday oo aan ogaaday in cudurkan i haya uu dhankiisa ka imaaday, canug yarna aan u hayo meel aan wax ka bilaabana waan garan waayay. Sidoo kaleetana waxaan garan waayay si aan waalidkaygii aniga i dhalay aan ugu sheega ninkan cudurka ama xanuunka uu qabo. Kadib waxay dhahday waxaan raadiyay walaalkiisa oo asagana South Africa la joogay. Walaalkiis markii aan weydiiyey oo aan dhahay waxaan ismaqlay ninkaygii waxa uuna ii sheegay arrintan ee maxaa ka jira. Walaalkiis waxa uu igu dhahay aniga ma ogi walaalkay inuu cudurkaas qabo, laakiin haddii uu kuu sheegay adigana aad qabtid waa wax dhici kara laakiin anigu ma aqaana ayuu igu dhahay. Kadib Fartuun anigoo aad u nacsan ayaa waxay tiri ninkii wacay waxaana ka codsaday inuu iska keefuro maadaama uu i khiyaanay arrin aad u xanuun badanna aan ku dhex jiro canug yarna aan haysto. Waxa uuna igu yiri abaayo. Ninkii waxa uu igu yiri ayay tiri Fartuun mar haddii cudurkii aa qabtid anigana aan qabo walaaley hana kala kaxeynin oo waxaan rabaa inaan ku dhaqdo. Awalba waan ku jeclaa waan awoodaa inaan ku biisho isla markaasna canugayga aan biishto. Marka waxaan kaa codsanayaa inaa canugayga iyo anigana kala fogeyn, sidoo kale adiga naftaada inaadan iga fogeyn ayaan kaa dalbanayaa ayuu yiri. Marka Fartuun waxay tiri aniga aad baa runtii u qaracsanahay u naxsanahay waxa igu dhacay iyo degdegna igumaysan dhicin. Muddo ayaan wiilka wada soconay laakiin ma sheegi karo waxay ahayd qadar ii qorneeday. Walaalayaalow maxaan sameeyaa ayay tiri maxaase igula talin laheedeen. Ninka hadda waa uu i qabaa ayay tiri weli muusan i furin. Sidoo kale canugiina waa u hayaa weli waan kala maqanahay. Anaga waxaan joogaa wadanka Kenya asagana waxa uu joogaa wadanka South Africa. Marka maxaa tala ah oo idinla gudboon ayay tiri oo ay sii laheedeen. Ma inaa iska furo ayaa igula talin laheedeen mase maadaama cudurkii uu igu dhacay ilaa haddana aan waalidkaygii u sheegin oo aad u naxsanahay ninkayga waan iska haystaa. Marka tala ayaa idinka sugaya ayay tiri Fartuun oo fariintan igula soo wadaagtay dhanka Facebook-ga. Waad mahadsantiin asxaabteeda wixii fikrada ee idinkaga aadan gabadhan walaasheena cudurkaasi halista ah uu ninkeeda qaadsiiyey. Bal qaybta commentiga inagula wadaag aad baadan u mahadsan tahay.